ciise masiix wuxuu yiri waxaan ahay arjirka wanaagsan. saaxiibayaal dhageystayaal daawadayaal ku soo dhawaada akhbaarta wanaagsan si aad ula socotaan casharradayada aan soo gelino iyo marqaati furada iyo qasiidooyinka cusub. fadlan subscribe akhbaarta wanaagsan. fariintayada maanta waxay ku saabsan tahay ciise masiix oo yiri waxaan ahay arjirka wanaagsan. waxayna ku qoran tahay kitaabka injiilka Yohana cutubkiisa 10 aayadda 1 ilaa aayadda 21. ciise masiix masaalo fara badan ayuu ku hadlay. waxaynu soo baranay oo meelo badan oo injiilka ku qoran asaga oo masaal ahaan uga hadlayo beerey ama dhir ama waxyaalo badan oo kala gedisan. laakiinse maanta arrinta halkan uu kaga hadlaya waxay tahay xertiisa ayuu wuxuu ugu yeerayaa inay yihiin asna uu yahay arjirkoodii ilaalinayay. laakiinse haddii aad fiirisid axdigii horeeto waa ay ku qoran tahay meelo fara badan oo lagaga hadlaya arjirka wanaagsan iyo midka uu yahay. marka intaanan guda gelin casharadaas oo dhan waxaan rabaa in marka ugu horeyso aan noo aqriyo aayadaha arrintan ka hadlayo. kitaabka Yohana haddii aad la soo baxdid waa injiilka cutubkiisa 10 aayadda 1 ilaa 22 waxaa qoran sida tan: runtii waxaan idinku leeyahay kii aan xerada idaha ilinka ka soo gelin ee meel kale ka soo fuulaa kaasi waa tuug iyo wax dhaca, laakiin kan ilinka ka soo galaa waa arjirka idaha. ilin joogaha ayaa isaga ilinka ka furo, iduhuna codkiisay maqlaan, idihiisana magacyadooda ayuu ugu yeeraa oo dibadda ayuu u kaxeeyaa. markuu kuwiisa wada saaro wuu horkacaa, iduhuna way raacaan waayo codkiisay garanayaan. nin qaldan raaci maayaan, laakiin way ka cararaan waayo codka kuwa qaldan garan maayaan. masaalkan ciise ayaa kula hadlay iyaga, laakiin ma aynan garan waxyaalaha uu kala hadlaya xaggooda. haddaba ciise ayaa mar kale ku yiri runtii waxaan idinku leeyahay waxaan ahay ilinka iduhu ka soo galaan. kuwii hortay yimid oo dhan waa tuugo iyo wax dhacayaal, iduhuse ma maqlaan. waxaan ahay ilinka. haddii qof inuu xaggayga ka soo galo wuu badbaadi doonaa, wuuna soo geli doonaa oo bixi doonaa, daaq buuna heli doonaa. tuugu wax kale uma yimaado inuu waxado oo dilo oo halleeyo mooyaane. aniguse waxaan u imid inaad nolosha haysataan oo aad badnaan u haysataan. waxaan ahay arjirka wanaagsan. arjirka wanaagsan wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood. kan ciidanka ah oo aan arjirka ahayn, iduhuna aynan kuwiisa ahayn, kolkuu arka yeyda oo soo socoto wuu ka tagaa idaha oo ka cararaa. markaasaa yeydu qabsataa oo kala firdhisaa iyaga, wuuna cararaa waayo isagu waa ciidan oo idaha waxba kama gelin. waxaan ahay arjirka wanaagsan. waan garanayaa kuwayguna way i garanayaan. sida aabbuhu ii garanayo anna aan aabbaha u garanayo, oo naftayda waxaan u bixiyaa idaha daraaddood. ida kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xerada ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa. waxayna maqli doonaan codkayga, waxaana jiri doona ida keliya iyo arjir keliya. sidaa daraaddeed aabbuhu waa i jecel yahay waayo naftaydan bixiyaa inaan mar kala qaato. ninna igama qaado, laakiin aniga ayaa iska bixiyo. waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo, waxaana leeyahay amar aan haddana ku soo qaato. amarkan oo dhan waxaan ka helay aabbahay. yuhuuddu haddana way kala qaybsameen hadallada aawadood. badidood waxay yidhaahdeen jin buu qabaa, wuuna waalan yahay, ee maxaad u maqlaysaan? qaar kalena waxay yidhaahdeen hadalladaasu ma ahan kuwa nin jin qabo. jin miyaa indho u furi karo nin indhala-aan ku dhashay? saaxiibayaal, aayadahan aan soo aqriyey ee ku qoran injiilka Yohana cutubkiisa 10 aayadda 1 ilaa 21 ciise masiix halkan dhowr mas'alo ayuu kaga soo hadlay oo kala ah marka ugu horeyso inuu na barayo inuu asagu yahay arjirka wanaagsan.
inaysan jirin waddo kaleeto oo ilaah loogu tegi karo. laakiinse maanta waxaa laga yaabaa dad fara badan haddii lagu yidhaahdo arijir iyo arijirka wanaagsan inaysan fahmin. laakiin yuhuudda iyo dadkii uu la hadlayay ee yuhuudiya ku noolaa waxay u badnaayeen dad xoola dhaqato ah. mar kastoo ciise masiix uu arrin ka hadlayana dadka wuxuu ku hoga tusaalayn jiray arrin ay fahmi karaan. waxa uu tusay hoggaanka wanaagsan ee hogaamiyaha arijirka ka imaan karo iyo hoggaanka xun ee hogaamiyaha arijirka ka imaan kara, labadaasba wuxuuna isku tilmaamay asagu inuu yahay arijirka wanaagsan. kitaabka axdigiisii horeeto yuhuudda way garanayeen, meelo badan ayaa ilaah qudhiisa uu isku tilmaamayaa inuu asagu yahay arijirka wanaagsan. tusaale ahaan haddaad fiirisid kitaabka sabuuradda cutubkiisa 23 aayadda 1 ilaa 2 waxaa ku qoran nebi daawud wuxuu leeyahay, rabbigu waa arijirka i jiraa, waxba u baahan maayo. wuxuu i fadhiisiyey doogga qoyan dhexdiisa, oo wuxuu ii hogaamiyey biyaha degan dhinacooda. isla kitaabka axdiga horeeta Ezekiel haddaad fiirisid cutubkiisa 34 aayadda 11 ilaa 12 waxaa ku qoran, waayo sayidka rabbiga wuxuu leeyahay, bal eeg, xataa aniga qudhayda ayaa idahayga raadin doono oo dooni doono, sida arijirka adhigiisa u doondoono maalinta uu dhex jooga idihiisa kala firirsanaa. sidaa oo kale ayaan idahayga u doondooni doonaa, oo waxaan kasoo samata bixin doonaa meelihii ay maalinta cadarka iyo gudcurka ahayd ku kala firdheen. marka yuhuudda iyo dadka uu la hadlayay ciise masiix waa ay garanayeen qiimaha iyo magaca maxaan ku rahdaa arijirka wanaagsan uu leeyahay iyo waxa uu ula jeedo. haddaba ciise masiix wuxuu si cad ugu sheegay, haddaad fiirisid 8 aayadood ilaa 10 aayadood oo ugu horeeyo oo qormadu ay ku bilaabanayso, inaan waddo kala jirin. wuxuu leeyahay, aniga ayaa arijirka, weliba waxaan ahay arijirka wanaagsan, weliba aniga midkaan ii imaan ilaah uma tegi karo. meeshan ida lagama hadlayo, xoolana lagama hadlayo, waxa laga hadlayo waa dadka xertiisa ah. ciise masiix kuwa xertiisa iyo kuwa aan xertiisa ahayn, dadka ayuu ku leeyahay xer ii noqdo, waayo waddo kaloo ilaah aad ugu tegi kartaan ma jirto. aniga inaan idin hogaamiyo, waddadaas keliya ayaad ku badbaadi kartaan, ayaad ilaah ugu tegi kartaan. meelo badan oo kitaabka quduska ku qoranna arrintan way ay xoojinaysaa in ciise masiix uu yahay jidka keliya oo ilaah loogu tegi karo. maanta waxaa jira dad badan oo jecel inay ilaah adeecaan oo rumaystayaal ay noqdaan oo sidaa ay nolosha weligeeda ku helaan, laakiinse waddadii ay u mari lahaayeen ma ay hubaan inay saxsan tahay. ciise masiix wuxuu yidhi, aniga mooye waddo kale ma jirto. halkan waxaa ku cad kitaabka yooxana cutubkiisa 14 aayadda 6. markaasaa ciise wuxuu Thomas ku yidhi, anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha, nina aabbaha uma yimaado, xaggaygu ku yimaadaa. kitaabka falimaha rasuulada Acts cutubkiisa 4 aayadda 12 waxay leedahay, mid kale badbaado laguma helo, maxaa yeelay ma jiro magac kale ee samada hoosteeda ee dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib noo ah inaynu ku badbaadno ilaa magaca ciise masiix un mooyaane. aayadaha marka ka hadlayo ciise masiix oo keliya in ilaah loogu tegi karo waa ay badan yihiin. haddaad fiirisid kitaabka faliimada rasuulaha aayaddiisa cutubkiisa 10 qormada 43 waxaa ku qoran, isaga nebiyadii oo dhan ayaa u marag furay in mid kastoo isaga rumaysto uu magaciisa ku heli dembi dhaaf. waa mid kasta oo isaga rumaysto ayaa dembi dhaaf heli karo. haddaad fiirisid yooxana cutubkiisa 8 aayadda 12 waxaa ku qoran, haddaba ciise ayaa mar kale la hadlay iyaga oo wuxuu ku yidhi, anigu waxaan ahay nuurka dunida, kii isoo raaca gudcurka kuma socon doono, wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha. isla yooxana cutubkiisa 12 aayadda 46 waxaa ku qoran, waxaan dunida u imid inaan nuur u ahaado, in mid kasto aniga i rumaysto uusan gudcurka kusii jirin. aayadahan marka aan si guud isula fiirino waxaan arki karnaa ciise masiix marka uu leeyahay, aniga ayaa arijirka wanaagsana, in waddada keliya oo lagu badbaadi karo inuu asaga yahay oo xer loo noqdo, asagana uu noo wado oo uu noo geeyo ilaaha runta, oo sida aan ku baranno ilaaha runta iyo waddada runta midkana bari karana
waa ciise masiix. qormadu way sii soconaysaa. tusaale ahaan haddaad fiirisid aayadda 6 waxaa ku qoran masaalkan ayaa ciise kula hadlay iyaga, laakiin ma aynan garan waxyaalaha uu kala hadlaya xaggooda. maanta haddaan aniga idiin imaado oo aan masaal idinkula hadlo ama arrin kaleeto aan ku xusa dadka, waxaa laga yaabaa dadkao dhan inaysan wada garan. markii ugu horreyso hadda aayadaha aan akhriyey ee arijirka aan ka hadlayeyna dadkao dhan inaysan wada garan. waxay u baahnaayeen qaarkood si ay u fahmaan in la fahansiiyo oo loo sharaxo waxaa loola jeeda arijidka. ciise masiix wuu sharaxay oo asaga isku sheegayo aniga ayaa arijirka ah, aniga ayaa ilinka ah, aniga ayaa jidka ah. waa asaga qaabka aayadda 11 markaad soo gaartid oo u sharaxayo. haddaba haddaynu fiirino isla aayadda 8 waxaa ku qoran kuwii horta yimid oo dhan waa tuugo iyo wax dhacayaal, iduhusa ma maqal codkooda. tuugu wax kale uma yimaado inuu waxado oo dilo oo halleeyo mooyaane, aniguse waxaan u imid inaad nolosha haysataan oo aad badnaan u haysataan buu yidhi ciise masiix. yuu ka hadlayaa marka? su-aashaas ay amaanayso. wuxuu ka hadlayaa culummadii iyo farisiyiintii dadka maxaan ku rahdaa diinta beri jiray, laakiin diinta waxay kutubta ku qoran laftirkooda aysan xajin jirin, laakiin dadkay beri jireen. culayskoo dhan bay dadka dusha ka saari jireen. macallin kale oo wanaagsan inay arkaan maysan jeclayn. aayado marka arrintaa ka hadlayo waxaa jiro kitaabka Matthew ku qoran cutubkiisa 23 aayadda 13 ilaa 16 waxay leedahay laakiin waa idin hoog culummada iyo farisiyiinta laba wajiilayaasha ah, waayo boqortooyada jannada ayaa dadka ka xidhaan. maxaa yeelay idinkuna ma gashaan oo kuwa galayana uma daysaan inay galaan. qaabkan ayuu ula hadlay culummadii waxbaratay ee dadka waxbaraysay. ciise masiix wuxuu yidhi dadka unbaad ka hor istaagtaan inay jannada galaan. waa uu garanaya ciise masiix inuu kelig yahay arijirka wanaagsan, waayo culummada iyo farisiyiinta marka uu yimid ma aysan soo dhoweyn, umana aysan arkayn inay xaq yihiin. asna wuxuu rabay inuu tuso oo uu baro jidka keliya ee runta ee ilaah loogu tegi karo in asaga uu yahay. laakiin dadka kaleeto ay raadiyaan wanaagooda iyo ammaantooda. marka kitaabka haddii aan sii fiirino aayadda 18 wuxuu ku leeyahay, waa Yooxana cutubkiisa 10 aayadda 18, ninna igama qaado, laakiin aniga ayaa iska bixiyo. waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo, waxaan leeyahay amar aan haddana ku soo qaato. amarkan oo dhan waxaan ka helay aabbahay, ayuu yidhi ciise masiix. dad badan ayaa marar badan na weydiiyo haddaan nahay soomaalida krishtanka ama dadka krishtankaaba waa la weydiiyaa, ciise masiix hadduu wiilka ilaah yahay, hadduu ereyga ilaah yahay, hadduu ilaah ka yimid, isku tilaabta maxaa loogu dilay? muxuu isku tilaabta ugu dul dhintay ayay yidhahdaan. laakiin aayaddan si fiican bay uga hadlaysaa. ninna igama qaado, laakiin aniga ayaa iska bixiyo. ulujeedka iyo sababta uu u yimid dunidan ayaa waxaa ahayd inuu dhammaystiro qorniinkii asaga ka horreeyey oo nibiyadii ay kasii qoreen ayuu fulinayay oo dhammaystirayay. kitaabka quduskaana waxaa ku qoran ilaah dunida jacayl intuu u qabo ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, si mid kastoo isaga rumaysto uu u badbaado, laakiinse uusan u dhimanin oo u lahaado nolosha weligeeda. waxaa loola jeedaa jannada. marka ilaah dunida wuu siiyey, ciise masiix wuu ogaa. kitaabka Matthew hadda maalin dhowaan aqrinayay waxaan ku arkay 3 mar ka badan ayuu xertiisa usii sheegayaa in isku tilaabta lagu qodbi doono. waa uu ogaa, sababtu u imid baa ahayd. marka aayaddan arrintaas ayay si fiican noo baraysaa. isla kitaabka Tiitos cutubkiisa 2 aayadda 14 haddaad fiirisid waxaa ku qoran isagu nafsadiisu u bixiyey annaga aawadeen inuu dembi oo dhan inaga furto oo uu inaga dhigo dad daahirsan oo isagu uu leeyahay oo ku dadaalo shuqul wanaagsan inay sameeyaan. marka kitaab qaabkaas ayuu aayadaha u kala qaadayaa. aayadda 14 ee kitaabka Yooxana cutubkiisa 10 aayaddiisa 14 haddaan isla fiirino waxaa qoran waxaan ahay arijirka wanaagsan. waan garanayaa kuwaygana way garanayaan, sida aabbuhu ii garanayo anna aan aabbaha u garanayo, oo naftayda waxaan u bixiyaa idaha daraaddood, ayuu yidhi ciise masiix. mar kale halkan wuxuu nagu barayaa naftiisa inuu bixiyey, ninna uusan ka qaadin. ulujeedada uu bixiyeyna ay tahay inuu dadka ku badbaadiyo.
kitaabka sabuurka nebi daawud aayadiisa koowaad cutubkiisa koowaad aayadda lixaad waxaa ku qoran waayo rabbigu waa yaqaanaa kuwa xaqa ah jidkooda laakiinse kuwa sharka ah jidkoodu waa baabi'i doonaa. quluubta dadka iyo qaabka ay u fikirayaan ayuu garanayay ciise masiix. cutubka 16 wuxuu kaga hadlayaa oo uu leeyahay aayadda 16 isla cutubka 10 Yooxana wuxuu kaga hadlayaa oo ida kale ayaan leeyahay ayuu yiri ida kale ayaan leeyahay oo aan ahayn kuwa xeradan ku jiro waa inaan keenaa oo waxay maqli doonaan codkayga oo waxa jiri doono ari kaliya iyo ari jir kaliya. ciise masiix halkan wuxuu kaga hadlayaa wuxuu leeyahay waxaan leeyahay ida kale ayaan leeyahay kuwaasna waa inaan keenaa codkayga maqli doonaan. halkan waxaa looga hadlayaa dadka aan yuhuudda ahayn oo maxaan ku rahdaa aan goobta taagnayn maalinka oo rumaysan doono ciise masiix kuwa hore u rumeeyay iyo kuwa gadaal ka rumayn doono ayuu uga hadlayaa. waxaa qoran ida kale ayaan leeyahay aan kuwa xerada ahayn kuwaasna waa inaan keenaa waxayna maqli doonaan codkayga oo waxaa jiri doono ari kaliya iyo ari jir kaliya ayuu yiri. aayadaha marka ugu dambeeyo oo haddaynu isla fiirino aayadda 19 20 iyo 21 waxaa ku qoran yuhuuddu haddana way kala qaybsantay hadalladaas aawadood badidood waxay yidhaahdeen jin buu qabaa wuuna waalan yahay maxaad u dhageysanaysaan. qaar kale waxay yidhaahdeen hadalladaasi maahan kuwa nin jin qabo jin miyuu indho furi karaa. ciise masiix waxaan arkaynaa meelo badan oo lagu caayay oo lagu yiri xataa awoodda shaydaanka ayuu wax ku sameeyaa. waxaan arkaynaa meelo badan oo lagu dacweeyay laakiin mar walba dadka ashaga ashtakeynayo ama dhaleecaynayo ama maxaan ku yiraahdaa aan ogolayn mar walba way kala qaybsanayaan. waayo waxaa jirtay calaamooyin waaweyn iyo mucjisooyin waaweyn oo ninna uusan hore u samayn ninna magaca ciise masiix mooye si kale uusan u samayn karin ayuu ciise masiix dadka ku hor sameeyay. qaar baa waxay yidhaahdeen waxay ku qoran tahay cutubka 9 ee kitaabka Yooxana ninkan aad leedihiin jinniyuu qaba ama uu waalan yahay soo ma aha ninka indha u furay kuwa indha la'aan ku dhashay. mucjisada intaa la eg dadku uu arkayay lamana inkiri karin. marka saaxiibayaal waxaan idinku leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin daawashada aad daawateen fariintan aan injiilka idinka soo diyaarinay. waxaan idinku leeyahay nabadgelyo rabbigu ha idin barakadeeyo.